Ma ogtahay daawade inay jirto luuqad lagu wada xidhiidhi jiray intii lagu guda jiray qarnigii 19aad, balse maanta isku beddeshay luuqad loo adeegsado muujinta gargaarka degdega ah iyo muujinta xilliyada dhibaatada lagu jiro. Sidoo kale, daawada ma ogtahay in haddii aad bardo luuqaddan ay sabab u noqon karto inaad ku badbaado? Waa luuqad ka beddelan luuqadaha kale aynu naqaano. Luuqaddan ayaa waxa ay ka kooban tahay oo keliya wax loo yaqaan dots and dashes. Markii ugu horreysay ee la adeegsado luuqaddan waxay ahayd sanadkii 1844. Luuqaddan ayaa waxaa la ikhtiraacay sanadkii 1838, waxaana ikhtiraacay nin lagu magacaabo Samuel Morse. Samuel Morse wuxuu ahaa nin u dhashay waddanka Mareykanka, wuxuuna sameeyey qalab telegraph. Ninkan ayaa qalabkii uu sameeyey u adeegsan jiray qoridda luuqadda Morse code-ka, oo ah luuqad uu isaga ikhtiraacay, ahna mid ka kooban dhibicyo iyo xariijimo aad u yaryar. Ninkan ayaa waxaa soo weheliyey nin lagu magacaabo Alfred Vail oo ahaa saaxiib u dhow. Alfred Vail ayaa waxa uu saaxiibkiis ka caawiyey samaynta qalab ka beddelan qalabkii hore, waxayna sameeyeen qalab ka yar qalabkii hore. Qalabkan cusub waxa uu gudbinayay dhawaaqa luuqadda ee Morse code-ka, halka kii hore uu gudbinayay qoraalka luuqadda. Labadan nin ayaa waxa ay sameeyeen in xaraf walba oo ka tirsan alfaabeetada Ingiriiska ay u sameeyaan dhibicyo iyo xariijimo aad u yaryar, sida horteena ka muuqata. Tusaale ahaan, kelimadda help iyo caawi waxay luuqaddan Morse code-ka ku noqonaysaa. Kelimadda source ayaa waxaa laga soo gaabiyey save our souls, badbaadiya nafteena. Haddii loo fiiriyo luuqadda Morse code, waxay noqonaysaa S oo ah 3 dhibic, O oo ah 3 xariijimo, iyo S kale oo iyadana ah 3 dhibic. Luuqaddan ayaa waxaa loo adeegsan jiray in lagu wada xiriiro dadka ka fog diyaaradaha iyo weliba maraakiibta, iyada oo loo gudbinayo dhawaaqa luuqaddan. Marka uu soo gaarana dhawaaqu waa ay qori jireen iyagoo markaas u beddeli jiray luuqadda Ingiriiska. Sidoo kale, luuqaddan ayaa waxaa loo adeegsaday in lagu wada xiriiro intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Luuqaddan ayaa waxay u fududahay qofka aan hadli karin iyo qofka baraleyska ah, isagoo keliya indhaha birig siinaya ama faraha meel ku garaacaya. Waxaa sidoo kale loo muujin karaa siyaabo kala duwan. Luuqaddan Morse code-ka waxaa lagu tiriyaa inay badbaado u noqotay dad aad u fara badan, waxaana ka mid ah dadkaas Jeremiah Denton oo ahaa nin ka tirsan ciidanka cirka ee Mareykanka, ayaa waxaa diyaaraddii uu watay soo riday ciidankii dhulka ee Vietnam xilligii dagaalkii labaad ee adduunka. Ninkan ayaa la qabtay, waxaana laga dhigay maxbuus, waxaana la marsiiyey ciqaab aad u kulul. Intaa kadib, nimankii ciidanka ee Vietnam ka ahaa ayaa waxa ay damceen inay maxbuuska ay ka duubaan muuqaalkaas oo lagu muujinayo inuu maxbuuskan yahay mid nabad qabo, si ay iskaga maaweeliyaan dowladda Mareykanka oo ah dowlad aad u quwad weyn. Ninkan ayaa markii muuqaalka laga duubayey ayaa waxa uu indhihiisa ku muujiyey luuqadda Morse code. Markii loo beddelayna luuqadda Ingiriiska ayaa waxaa soo baxday ereyga torture oo ah jirdil, sidaasna lagu ogaaday in ninkan uu ku sugan yahay xaalad adag. Kadibna waa laga soo badbaadiyey ciidankii haystay ee Vietnam, loona soo celiyey dalka Mareykanka oo ahaa dalkii uu ka dhashay. Luuqaddan ayaa waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay luuqadaha sii dabargo'ayo maadaama dadku ahmiyad siinan barashadeeda. Waana luuqad aad iyo aad muhiim u ah, maxaa yeelay waxay kaa caawinaysaa inaad ku badbaado xilliyada aad dhibaatada ku jirto.